wixii aniga iyo dawladda markaa timid dadaali karo dhamo dadaal ahayaa la sameeyay shabaabka intaan sii riixi karno waa riixnay waqti iyo fursad umaanaan helin dalka dhan inaan ka xoreyno laakiin si rasman caasimadda uga sii fogeyno dagaallo kale iyo qaabdarradiisii argagixisada la xiriirsaneeda way jireen dalka dawladnimadii hay-adihii dawladnimada inaan dib u dhisno ayaan bilownay dalka hay-adihii maamulka oo dhan bangigii dhexaad la xoojiyey board guddi madax bannaanoo bangiga maamulo talooyinkiisa gaaraa loo sameeyey xafiiskii xisaabiyaha guud iyo xafiiska hantidhowraha guudaha dib loo habeeyey loo abaabulay dhallinyaro soomaaliyeed oo lagu soo xuray aqoontooda lagu soo xilaa mas-uul looga dhigay ayadoo weliba hay-ado caalami ah ay kor joogteynayaan dhallinyaradaas xulitaankoodii si ay u noqdaan dad maxaan ku dhahdahay qualified oo professional ah oo hogaamiya meeshaasoo kaloo aan u baahnayn in 4.5 iyo qabiil iyo wax lagu saleeyo ee aqoon lagu saleeyo dalka soomaaliya ciidamadeena amniga askariga dibadda lagu soo tababari jiray waxaan suurto gelinay in dalka gudihiisa lagu tababaro askarta aan dhahno oo askari dabla ah dibadda aan loo qaadin xerihii dib loo dhiso annaga waxaana lagu wareejiyey xero tababar oo dhisan jenaraal dhegabadan allah u naxariistee xerada loogu magac daray waa ballaarinay midii jenaraal goordana la dhisay midaas kaloo maxaan ku ihahdaa walaalaheen turkidu ay noo dhiseen iyadana halkaa ku taalo ordogan la yidhaaha la dhisay kismaayo xero kaloo tababar laga furay baydhabaa laga furay meelo badanaa laga furay askarta in lagu tababaro dalka gudihiisa saraakiishana dibaddana loogu soo tababaro waa la suurtogeliyey waa lagu guulaystay saraakiil badan oo hogaamiyayaal oo maanta ciidamadeenna amniga hogaaminayo ayaa mashruucaas ku yimiday askarta inta joogta badankoodana xeryaheennaas tababarkaa oo wiilal soomaaliyeed oo tababarayaala ay joogaan ayay ka soo baxeen ajnabigii tababarka laga saacidayey oo matalan yugandho loogu qaadi jiray askartane inay halkaa yimaadeen askarta halkaa noogu tababaraanaan weydiisanay waa la dalka nidaam federaal oo qaatay laakiin maalintaas dowladda puntland ay jirto 4 dowlad goboleed kalaa dalka laga dhisay maanta structureki federaalku waa dhammaystiran yahay dalka waxaa laga suuro geliyey adeegii bulsho isbitaallo cusubaa la dhisay qaarkood madaxweyne shariif uu soo bilaabay qaarna muxuu ahay xilligeenna annaga aan ku darnay jaamacaddii ummadda soomaaliyeedaa dib loo furay ayadoo lagu furay bajet soomaaliyeed oo dowladda soomaaliyeed leedahay maanta dhallinyaro soomaaliyeed oo kumanaan ah ayaa dhigata jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo dowladdu ay leedahay imtixaan midaysan oo dugsiga sare ah ayaa suurto gelinay shahaado midaysan ardayga soomaaliga ee dibadda waxbarasho u doonanaya iyo midka inta imaanaya inuu helo ayaan suurto gelinay lama siyaasadaynayn lama riixaynin siyaasad laguma xidhaynin maxaan ku ihahdaa dalladihii iyo dadkii waxbarashada hore u ahaya ayagoo karaamaysan oo raalli ka ah ayaa inta laysku yimid sidaa lagu waxeeyey waxaa lagu waxeeyey waxay ahayd walaalow iyo ra'yi laysku darsanayay iyo dadku rabitaankii dowladnimada oo ay rabeen waa daliil dadka soomaaliyeed mar walba dowladnimada inay u dhagan nugul yihiin intaasoo dhan dowladda soomaaliyeed ayaa samaysay iyo in kaloo ka badan hadda inaan kusii daaho waqti badan kusii dhumiya aanaan rabin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladdiisii oo labada gol ee baarlamaanku ay ka tirsan yihiin ay ka mid yihiin madaxweynaha iyo waxaa lagu wareejiyey dal sidaas ah oo isla socda oo nidaamkiisii federaalka ay dhaqan galsan yahay bilaaban yahay si fiican oo hay-adihiisii maxaan ku idhahda maaliyadda dhisan yihiin oo kuwiisii amniga ay dhisan yihiin oo kuwiisii maxaan ku idhahday dastuuriga ahay ay dhisan yihiin ay qaabaysan yihiin 5,000 oo shaqaalo rayid ah oo garaado lacag ku qaato oo aan ahayn lacag siman shaqaalaha ha laga simo aan ahayn oo gareeg lacag ku qaataan keennay maanta 5,000 ay joogtaa waata haddaatan halkan laga dhawaajinayo qof laguma darin waa xuquuq soomaaliya oo dhan ka maqan waana xuquuq si gaara uga maqan muxuu ahaay dadka dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay ee jaamacadaha lokaalka ah ka baxday si local ah masters degree ku qaadatay oo weli u sii taaganoo dalka weligood aanan ka bixin baasaboor ajnabi ah aanan qabin ayaa muxuu ahay xuquuq ka maqan ay tahay arrintaas waxayna u baahan tahay in dib loogu noqdo
sidaas dowladdaas isugu habaysan isku toosan laakiin dabcan waxaan qirayaa in wax badan ay dhinaayeen wax badanaa dhinaay laakiin waa xasuustaan halhayskeenii berigii doorashada ay socotay ee ahaa muxuu ahaa qaabyo ninkeedaa dhammaystira dowladda dhisidu madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ayadoo qabyo ah ayuu madaxweyne cabdullaahi yuusuf ku wareejiyey madaxweyne cabdullaahi yuusuf allah u naxariista ayadoo qabyo ah ayuu ka tegey oo madaxweyne sheekh shariif uu yimiday madaxweyne sheekh shariif ayadoo qabyo ah ayuu igu wareejiyey anigana waxaan qirayaa ayadoo qabyo ah inaan ku wareejiyo maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin qabyo kasta midda ka dambaysa waa kasii yaraanaysa qabyada waxbaa ka qabsoomaya madaxweyne kastoo yimaado qabyadii loo dhiibay waxbuu ka qabanayay wuxuu u dhinaayay war halahaanna waa qabsoomeen halahaanna waa dhiman yihiin asagoo dhiibay maanta marka maxaan joognaa qabyadii wax maa ku darsooma mase gadaalaan u soconay qabnadii wax badanaa kasii degay